السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر المخلوق فإنه داء. الحمد لله. إلهي بان ku xamdinaynaa walaalayaal, habeen jimca oo barakaysan, masaajidkaas ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay ee cibaadada ilaahay loo dhisay, allaha nagu kulansiiyey baa mahadle. runtii jazaakum allahu khayran. culammadu wayna la joogtaa, akhyaarteennii, akaabirteennii, culimmadeennii, laakiin annagu waxaan u imanay keliya ama nii soo ziyaaranay in aan isbaraarujinno uun. almawcidatu tadkiratun lilcaalimi wa tacliimun liljaahili baa la yidhi. almawcida hadday meeli ay ka dhacdo waano iyo naseexo, caalimkana waxay u noqonaysaa tadkiro oo cilmigiisii baa la xasuusinayaa. jaahilkana waxay u noqonaysaa diinbarashay u noqonaysaayo cilmi ka maqnaa buu ka faa'iidaysanayaa majliskaas. innakuna waxaan nahayba insaan macnaheegu waa kii ilowshaha badnaa. insaan, bani aadam, bashar. insaankaasi mar walba wuxuu u baahan yahay in la xasuusiyo oo la baraarujiyo. oo qur-aanka dhan baa ilaahay ku sheegay inuu yahay xasuusin. in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin. nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay ku sheegay inuu yahay mudakir, xasuusiye. walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid. maxaa bani aadanka markaa la xasuusinayaa? bani aadankan waxaa la xasuusinayaa ballankii ay horay u galeen ee ahaa inay alle keligii ay caabudayaan. waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa shahidnaa an taquuluu yowma alqiyaamati innaa kunnaa can hada gaafiliin. aadam calayhi salaam markii aabbaheen la abuuray ee arlada loo soo dhaadhiciyey jabalu nucmaan, halka carafaad ay ku taallo, halkaa nebi aadan calayhi salaam oo ku sugan, ayaa ilaahay jalla wacalaa dahriga nebi aadan ayaa ilaahay ka soo qabtay arwaaxda awlaaddiisa. markaasaa hortiisa lagu sheedhiyey buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. markaasaa ilaahay ballan wuxuu ka qaaday arwaaxda basharka oo dhan oo hal qof uunan ka maqnin ruuxdiisu in uu yahay allaahu rabbulcaalamiin, rabbiga macbuudka ee cibaadada mutaystay inuu yahay buu ballan ilaahay ka qaaday. uuna qirsiye ilaahay fa ashhadahum calaa anfusihim. markaasaa ilaahay ku yidhi: anu rabbigii ini uumay ee ini arsaaqayay ee iska kiin lahaa miyaanan ahayn? qaaluu balaa bay idhahdeen kulligood. ballankaasaa bini aadamku ay soo galeen inay ilaahay jalla wacalaa keligii ay caabudayaan, oo keligii ay adeecayaan, oo keligii ay baryayaan, oo keligii ay isku dhuldhigayaan, oo keligii ay baahidooda u sheeganayaan. ballankaasi bani aadanku way soo galeen.
laakiin arladan markay yimaadeen basharkii bini aadankii arlada ay yimaadeen qof walba mujtamacii iyo bii'addii uu ku barbaaray ayaa saamaysoo bedishay kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa imaa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi ilmo kasta oo dhasha buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam fitrada islaamka ayuu ku dhalanayaa ama labadiisa waaliduunbaa xagga yahuudiyadda u qaadayo yahuudi ka dhigaya ama labadiisa waaliduunbaa nasraani ka dhigaya ama labadiisa waaliduunbaa majuusi ka dhigaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam ilmaha yar kolba mujtamaca uu ku dhex barbaaro sida ay yihiin buu markaa ilmuhu uu noqonayaa ama qof kastoo adduunka yimiday wuxuu dhalanayaa isagoo qaba fitraddii saliimka ahayd ee ahayd fitrat allaahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah daalika addiinu alqayim fitraddii toosneed ee ahayd inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu keligii uu yahay macbuud kala baryo ee la weyneeyo inuu asaga yahay fitradda iyagoo qalbigooga ay ku jirto ayay bini aadamku adduunkan ay yimaadeen laakiin kolba mujtamaca qofka uu ku dhex barbaaro ayaa marka qofka bini aadanka saameyn iyo raad ku yeelanaya kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun marka bini aadankii ballankii ilaahay uu la soo galay arladan markay yimaadeen badanaa ballankii way iloobeen way halmaameen raxmatan minhu jalla wacalaa ilaahay isagoo bini aadanka u naxariisanaya oo mar walba addoomihiisa khayr u khayr miraya oo jecel ayaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu u soo dejiyey kutub waxauna u soo diray maaragtane ergo 100 iyo intaasoo kun oo nebi oo 312 rusul ay ahayd iyo intaasoo suxuf iyo intaasoo kutub oo shareecada oo ilaahay jalla wacalaa bini aadanka uu samada uga keenay ayaa ilaahay bini aadankan u soo diray si bal bini aadankan ballankii ilaahay ay la galeen aynan u halmaamin ee mar walba u xasuustaan oo qur-aankii aayaadka ilaahay lagu gartay bay culimmadu yidhahdeen waa 2 aayadood midna waa middan inala hadlayso waa qur-aankii midna waa middan maaragtaane aan arkayno aayaatullaahi almanduur iyo aayaatullaahi almantuuq aayaadkan mantuuqa waa qur-aankan weeyaan haddaad qur-aanka u fiirsato 80% qur-aanku wuxuu bayaaminayaa ilaahay cadamadiisa iyo nolosha dambe ee weyniga badan buu qur-aanku ka warramayaa juzcamo oo keliya 19 meelood baan u malaynayaa inay tahay ilaahay inuu ku sheegay inuu cirkiga dhulka isagu abuurtay hal mar oo keliya hadduu sheegan lahaa way ku filan tahay xujo cid ilaahay ku haysatana ma jirto laakiin limaada allah caza wajalla muxuu ugu celcelinayaa uu leeyahay cirkiga dhulka aniga abuuray waxaa laga dhaadhicinayaa tawxiid ilaahay horta garo ilaahay macrifo ilaahay dhaba u garo haddaad ilaahay garata markaa inaad adeecdaa kuu dhib yaraan marka bini aadankan muhiimadda ugu weyn adduunka loo keeno waa inay ilaahay aynan iloobin waxaan adduunka aad arkayso oo dhan waa ikhtibaar adaa lagugu eegayaa nin saalixiinta ka mid a inankiisa markuu la dardaarmayo wuxuu ku lahaa 2 weligaa ha iloobin buu ka yidhi 2na weligaa ha xasuusan lacalahu luqmaan alxakiim inuu ahaa marartu bikaiirin min alambiyaa buuhi nebiye fara badan ayaan suxbad la soo yeeshay majaalistoodii 8 mas'ale ayaan ka soo faa'iidaystay buuhi ee iga bara inankaygiyow haddaad salaada aad tukanaysana qalbigaaga ilaali dad haddaad la fadhidana carabkaaga ilaali cunto haddaad cunaysana calooshaada ilaali aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaali buu ku yidhi haddaad salaad tukanaysid qalbigaaga ilaali oo qalbigaagu yuunan meel kale u jeesane qalbigaagu salaada dhexdeeda ha ku mashquulo allah caza wajal allahaad hor joogto qalbigaaga ku mashquuli dad haddaad la fadhidana wuxuu ku yidhi carabkaaga ilaalso aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaalso cunto haddaad cunaysana maaragtaane calooshaada ilaalso 2na weligaa ha iloobin buu ka yidhi 2na ha xasuusan 2da uu ku yidhi ha xasuusan waa labadee dadka wanaagga aad u samaysid weligaa ha xasuusan buu ku yidhi dhibaatada adiga ay kuu geystaan ha xasuusan buu ka yidhi 2 laa tansaahumaa wa 2 laa tadkurhumaa buu ka yidhi 2 weligaa ha xasuusan haba hadal qaadinba ixsaanaka ila annaas wa isaa'atuhum ilayka wanaagga dadka aad u samaynaysid
waligaa xasuusan haddaad ummadda aad wanaag u samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad cilmi baraysid ilaahay dartii u bar haddaad u ixsaan samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad u shafeecad qaadaysid ilaahay dartii ugu shafeecad qaad haddaad wax dayminaysid ilaahay dartii u daymi waxaad dadka u qabanaysa wanaaga marka u horeysa waa inaad u qabataa alla dartii dhibaatada dadku ay kugu sameeyaanna weliga xasuusan buu ka yidhi iska ilow waxaad ahaataa saliimu sadri qof qalbigiisu mar walba uu yahay nadiif dadka ixsaankaad u samaynaysid haddaad mar walba aad dadka ka sugta inay abaal ku celiyaan waxaad noqonaysaa inaad waxaad halis u tahay inaad ku dhacdo mannaan gallad sheegta inaad noqoto aad halis u tahay gallad sheegte gallad sheegtana waayo waa ilaahay saddex waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ilaahay maalinka qiyaamaha saddex la hadli maayo xaggoogana ilaahay daymooni maayo dembina ilaahay ka dhaafi maayo cadaab kulul oo daranna way leeyihiin saddex jeer buu nebigu erayadaa ku celiyey abu dar alkhifaari ayaa yidhi khaabuu wa khasiruu man hum yaa rasuula allah way hoogeen wayna khasaareen kuwaasi ayay yihiin nebi allow noo sheeg markaa buu nebigu yidhi almannaan waa ka dadka u gallad sheegta buu rasuulku yidhi gallad sheegte qofka mar walba dadka yidhahda waxaasaan kuu sameeyey anigu xaabaan kuu qabtay anaa magaalada ku soo geliyey sidaa ku lahaa dadka la mid buu ku lahaa anaa qof ka dhigay kan maad arkay buu yidhi dadka anaa qof ka dhigay buu yidhi oo marka hore ma dameer buu amsa daayeer yani kalaam hadal yar oo basiida qofka si dhib yar uga soo baxaya khatarna uu ku galaya qofka anaa sameeyey iyo anaa wax kaa dhigay iyo anaa dadka kugu daray iyo haddaan anu jirin maba jirteen iyo may waa inaad ahaataa marka u horeysaba haddaad ummadda wax u qabanaysa ilahay darti wax ugu qabo laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura ikhlaasku waa cajiib allah ina siiya ikhlaaska man camila camalan ashraka macii gayrii taraktuhu wa shirkahu xadiis alqudsi ilaahay waa kii lahaa man camila camalan qofka camal sameeya adduunka dusheeda camalkaasuu sameeyeyna aniga cid kale igu ladhay baa ilaahay yidhi ii shariig yeelay camalkiisa iyo shirkigiisa qiyaamaha waan uga tagaa baa ilaahay yidhi saddexda qof ee ugu horeysa uu nebigu sheegay sal allahu alay wasalam ee naarta lagu tuuri doonana waa saddexdee waa caalim waa taajir sakhi ahaa iyo nin mujaahid ahaayoo loo malaynaya inuu diin u dhintay saddex camal oo waaweyn bay la imanayaan kan waa mujaahid buu ahaa kana wuxuu ahaa caalim buu ahaa ummaddu cilmiga barayo qaari buu ahaa kana wuxuu ahaa maaragtaane sakhi maalqabeen ayuu ahaayo xoolihiisa u bixin jiray saddexda camal ay la yimaadeen ilaahay hortii saddexda camalba waxaa ku ladhnaa maaragtaane shirki baa ku ladhnaa deedna markaasa ilaahay odhanayaa aduu waad u dhimatay waad soo dhimatay laakiin aniga dartay umaad soo dhimane in lagaa yidhaahdo hebel waa nin dagaalyahan ayaad u soo dhimatay waana lagu yidhi adiguna qaari baad ahayd qur-aan akhris fiican ama waacid ummadda wacdiye ayaad ahayd oo dadku ay hadalkiisa dhegaystaan wacdiga markaad jeedinayseed ummadda wax u sheegaysa ama aad wax baraysidna aniga dartay umaad barayne hebel waa nin caynkaasoo ummadda wax u sheego carab fasiixi ayaa hal lagula yidhahdaa islahayd kanna waxaa la odhanayaa adiguna nin maalka bixiyaad ahayd oo meel kastoo khayra xoolaha waad ku bixinaysay hadday masaajid tahay hadday madaaris tahay hadday aytaam tahay laakiin waxaad u bixinaysa waa hebel waa sakhi hal lagu yidhaahdo saddexdiinnaasi waa laynii yidhi adduunka dusheediiye agtayda waxaad ku leedihiin waa naarta ku tuura la odhan doonaa xadiidka abaa hurayra radia allaahu canhu markuu sheegi jiray uu ooyi jiray uu kici jiray uu dhici jiray waa la kicin jiray uu ooyi jiray uu kici jiray markay naftu ay ka bixi inay ka baxda halis u gaadho ayuu xadiidka nebigu ka maqlay uu sheegi jiray lilaahi waa inuu ahaadaa qofka muslimku waxaa dadka u qaban ilaahay dartii ugu qabo waa inaad ku doontaa camalkaaga aakhiro camalkaaga adduunyada ha ku doonin cabdillaahi ibnu mubaarak raxmatullaahi calayh ayaa lagu yidhi maninnaas dadi ayay yihiin noo sheeg markaasuu yidhi alculamaa dad haddaad i weydiiseen dad waxa weeyaan waa culammada waa dadka ilaahay cilmigiisa yaqaana waa dadka ilaahay yaqaana ee aakhirada yaqaana ee shareecadda islaamka yaqaana dadkaasuunbaa dada markaasaa lagu yidhi famanilmuluuk kuwa haddii aad dad ku sheegtay haddana boqorraduna ayay yihiin markaasaa yuu yidhi azuhaad
وادتك الزاهدين الدنيا كالزاهدي الدنيا بدبركيغا waxa dul yaala waxba aanan u arkayni markaas lagu yiri ma tawaaduc ana balnoo sheeg tawaaduc muxuu yahay markaas lagu yiri at-takabbur ala al-aghniya dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aanan u waxba aad u arkin oo agtaada qiimo aanan ku yeelan taas tawaaduc la yiraahdaa buu ku yiri markaas lagu yiri faman as-sufaha dadka sufahaduna ay yihiin man gaabka aqliga aan lahayn wuxuu alladhi yaakulu diina bid-dunya wa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magaca diineed haddana dadka adduunyo kaga doonay wajigiisa diineed adduunyada uu isticmaalaya kaasa safiha buu yiri فنحسن دتك هدان وحو قبنينو هدان وحو شيغينو هدان wax barayno hadaan ihsaan u sameeyno hadaan infaaqinayno waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxa kale uu ku yiri ninkaas inankiisa markuu la dardaarmayay dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaana ha xasuusan buu ka yiri waxaad noqotaa qof saliim sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaada nadiif muuminka qalbigiisu غل يا حسد يا بغض وعينه كهذا صليم وكي النبي لها حديث في السنن نن أهل الجنة إنه صوبح دونا نسحابة كمدا صوغلو سووا يسيستي صحابة ننكي بي فيريين هذانا مالين لبعض والنبي يقول نن أهل الجنة إنه صوغلي دونا إسلام ننكي با صوغلي هذانا مالين صدحات والنبي يقول نن أهل الجنة إنه صوغلي دونا إسلام ننكي با صوغلي عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu yiri aabahay baan isa soo diinay in marti qaad markaasoo marti qaaday aabihiina ismay soo diideen wuxuu rabay kaliya inuu arko bal ninkani acmaasha uu ku mutaystay inuu noqdo ahlal janna ha soo aragtid buu ku yiri ha soo aragtid buu islaha iyagu khayrkay ku kala dayanayeen khayrkay u kala badinayeen khayrkay iskaga dayanayeen inagu laakiin maanta maxaan ku kala dayanaa naga zamankeena dadkii adduunyo u tartamayaan adduunyo u kala badinayaan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ayaa lagu yiri sif lana dunya adduunyada Ali oo bal noo sifee markaasuu ku yiri ma asifuha maxaan igu safeeya awwaluha ana wa aakhiruha fana wa halaluha hisab wa haramuha adab kayri xan adduunyada ka sheegaa buu yiri awwalkaygu waa ana wa ta'ab ودال بدتك ما أنت أدوية جوجا إيجا قف والبا ودالن يحي إنن كي بدالن وأبيه بدالن وفقير كي بدالن ومالقبين كي بدالن ومدحذي بدالن وشعوبتي بدالن وهوي بدالن وإننتي بدالن وجامعي كي بدالن وكي مالك هيستاد دالن وكي فقير كها بدالن كي ميجا جوجا دالن كي ديار ذا وذي بدالن أولها عناب علي بن أبي طالب أدوية هذا دي ويديسين أول كيجو ودال وتعب ودال ما بنصنع سامبا ورما لا نستا ما نصنع شيء وآخرها فناء حكدم بي دماد أما أذيك دمن أما أدوية كهر دقاقي حلالها حساب تيدا حلال كوكو سوق شن حسابك كدم بيسا وحرامها عقاب تيدا حرام كوكو سوق شيء والعياذ بالله هنا وعقوبة الدنيا تدوش يدي آخر والله قوع عقاب حرام تيدا من استغني فيها فتن ومن افتقر فيها حزن بيودي الدون كدوش يدي نيك إلى هاي هنتي أوصينا هنتي دا وكفد نوبي حساب يدال يالرفاض يعريري يولول يولبهار يسترس يولا هو مكجري كأدوية أنا هيسنا فقير كنقدين مروق ومكجري سقونا مروق من حساب تيدي بعد ضو خصي من ولول كيجيبها هيو هالكان كهلا ضو هيا تصدق معي الدون كيس كم يدين أصحاب النبي جو آخرة ذي ترتميين جنة ذي أكل بدينيين وفي ذلك فليتنافسه المتنافسون ما دام النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصدح مع الموضوع السكوحي تقويري نن أهل الجنة النص وقال دونا عبد الله بن عمر وحو رادنا يا ننكني وحو كمتيس الجنة ما السبب صدح بين مركو مرتوها وح أعماله الزيادة وانت يكو باي قبنيين دافسن مركو كوايي ayuu yiri aabahayna ismaan soo diidine saddex maalmood buu nabigu yiri hal janna inagu soo bixi doona
adigaana noo soo galee camalka aad ahla jannaha ku noqotay ee maqaamka aad ku mutaysatay baan rabay inaan kaa arkee wax acmaal oo dheeraad oo annakaadna dheer tahayna ma arka buu ku yidhi salaadiina waa 5 waqti baa tukataa saacadaha dambana witridaad u kacdaa habeenkiina cibaado badan kaama muuqato salaata leelkaagu ma badno munaajaadkaagu ma badno quraan akhriskaagu ma badno markaas yidhi huwa ma ra'ayta buuri inta aad khayrka aad igu aragtay baa anigu aan sameeyay wax kale ma sameeyay buu ku yidhi markuu ka sii jeestay buu u yeedhay kaalay mid baa jirtay buu adiga ka qarsoon oo aanad ogeyn waa maxay habeenkii ma seexdo ilaa waxaan seexdaa anoo dadka muslimiinta iska cafiyaan seexdaa buu qofna calool xumo calooshaan ugu hayn salaamatu sadri saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin cibaadadoodu ma badnayn salaadooda soonkoogu ma badnayn laakiin qalbigoogaa fiicnaa iyaka salafku waxay odhan jireen abi bakr sidiiq radiyallaahu canhu saxaabada rasuulka iyo ummadda nebi maxamed sooniya salaad maaha wuxuu ku dhaafee bishayin waqara fii qalbihi nuur qalbigiisa ku dhibcay ayuu abubakar ummadda ku dhaafay qulubtooda ahayd qulub nadiifa marka dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan ha xasuusan iska saamax iska cafi qazawaadkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam qazwad kamida ayaa markuu nabigu qanaa'imtii u qaybiyay saxaabada nin ayaa yiri marka qismadan la qaybiyay lagumana cadaalad falin ilaahay dartina loogama jeedo buu yiri hadalka ayaa lagu leeyahay nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wasalaam wal fiirsada nabiga sa'atu sadrihi qalbigiisa balladkiisa eeg iyo baaciisa عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيها هذا الكلام مغلي ورمحاتري قسمة لا قيبيي حولها سدن لو قيبيي لقمنا عدالة فلن وعدالة لقما قيبين إلهي وجهك سنة لقما جيد بيولي هذا الكلام ورمين تقول لك يا دنبي ابن مسعود رضي الله عنه والله إن مقرنا النبي قالوا شيء بيولي مرقاب النبي قالوا شيء عليه الصلاة والسلام نبي وجهك سيبا بدل مي مرقاب النبي صلى الله عليه وسلم وحيري إن لم يعدل الله ورسوله فمن يعدل النبي يري إلهي رسولك هذه عدالة يكون سميني وأيام وعدالة حقه كإيماني ويدو أياك لو عدالة سمين رسولك يري أرجع مرقو النبي يري أيود ولالك موسى عليه السلام أنت إنك بدن بالدبيا أو صبر برسولك يري يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ولكن موسى عليه السلام انت إنك بدن بيقوم جيسو أي دبيان أو صبري أنا قلنا وصبر يا أبو رسولك لمركز سلامة الصدر لبدا ولغا وحكوده حسوسا لبنا هاي لوبن إلهي هاي لوبن دارت آخرا هاي لوبن بوكيدي الله والدار الآخرة الله وكيكو أبوريكو جرسيي دارت آخرنا ودارت كل جنوة النقند حق ذويان الله وكيكو أبوري محكو أبوري معرفة سؤال هاي كو أبورتي عبادة سائلة هاي كو أبورتي آخرتنا ودارت أضامها إلى هاي وكسو جيو أضامها لقو حسابي دون ويان إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلهي قرآنك كغورما يا أوليحي إن يوم الفصل كان ميقاتا مال انت بنا آذن كالله كل السين دونو الرب قود إلا كل مدونان ومال انت ويوم الفصل ومال انت لك لصاري دونو ويان كيف عنائك يحمابا لك لصاري مؤمنك يا منافق لك لصاري أهل الجنة أهل النار كان لك لصاري كي وناك سنايا كي حمابا لك لصاري يوم المصي يوم القيامة لبدا ولغا هاي لوبن بوكوري لبدا ولغا هاي لوبن الله يكو أبوري هاي لوبن مر والبحصوص نو وقلبك إلهي كو هاي هداد مهرد هذا جوكت إلهي حصوص نو هداد أقل كاقا جوكت إلهي حصوص نو
haddaad maskiidka joogto ilaahay xasuusnow haddaad cirka joogto ilaahay xasuusnow haddaad dhulka joogto ilaahay xasuusnow weligaa ilaahay hayloobin laana ilaahay adaa u baahan qalbigaaga inuu ilaahay ka bixin ducadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam ugu badnayd uu ku ducaysanayay maxay ahayd yaa muqallib alqulub thabbit qalbi ala diinik qulubtuna waxay ku jirtaa buu nabigu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala asaabicdiisa laba usbuuc oo kamid ay ku jirtaa buu nabigu yidhi yuqallibuha kayfa yashaa siduu doonaa ilaahay u qallibaa siduu doono yuqallib marka nabigeena ku ducaysanayo laha ilaaha qulubta bini aadanka gagadinayo qalbigayga ilaahu daacadaada ku sug ilaahu qalbiga macrifada ii fadhiisi فلا ننسى إلهي نما يلوبين يسوق يسوق يلوبين عينكم كما يلوبيو خلقك فسواك أوكو أبور أوكو جرسيي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة إلهي نعمتي سواك كهويي تيدا موقتي تانا موقنبا أمني باكو إلهي كسي أمنك يا أمنك نسيه إلهي من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها قفك واقو وبريستي بو نبي يقول يسقو نبض قبع يجركي سيو بض قبع قوت اليوم كينا مالنتا وحو عونينا هايستبو نبي يقول نعمة دي أدوية تالله دنوال لسيب رسولك يقول واقي باكو بريي دادكاقي أذيقي ونبض قبع أمنك والنعمة إلهي نسي إلهي كم هذية أمنك هلا إلى اليوم نعمة إلهي وبحيا نعمة أقوين وإصلان لماذا نعمة الله بعضنا علماء وحيدة وعافماتك نعمة صدح هذا هدين لا شيئا ونبت قليدا رب اجعل هذا البلد آمنا أمنك وقالي ويان إبراهيم بكدو عايزتي أمنك بشو مركي بلاتو نبيك كدو عايزتو يري اللهم هل باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله اللهم هل علينا باليمن والإيمان بشيبا بلا نيسا وحاصلنا إن تكدو عايزتid بشاس إن بركة كولا دلته بركة إيه نبت قليو إن أمن لا دلته إن أرزاقات بركة لا كولا دلته إن إسلام ماذا إلهي كوسقو إن نبت قمنا إلهي كوسيو نبي الله إبراهيم عليه السلام وحو كدو عيسنا لبا شيء إن مدي سو كدو عيي مركو بيتك إلهي كدو عيني لبا لا محي هيد إن إلهي دريدي الشرك إلهي وكا إلهي أمن إلهي أوصيه وتوحيدك وعسر عيي النبت قليدي وهي هدان نبت لهيسن سيدا المساجد الله عمر مايو سيدا الله سو شغتك مايو مركا أمنك إلهي باهيا عافماتك إلهي باهيا أرزاقات إلهي باهيا وحد هذيك حيث إلهي باكوسيي وحكام مقن إلهي باكوهيا فنسأل من الله إلهي وحول بها ويدي سنو إلهي وحيي حشود بدنه أدونك أدو قعمها كرو قادو إلى إله وحا إسي إنه الفرمرني إلهي كسو عشو وكحشو دابو النبي قول عليه الصلاة والسلام فلا ننسى بدل ما أنت إلهي وإلو بين قار زمن كي راعين زمنك قار ماددي باقادتي قار شهوات كي باقاتي يا كسوري دي مركا يا ونستحين يا ودمقن إلهي مرول بحصوصنو ذات كان إلهي حصوصي آخر هذا حصوصنو
dadka aakhirada ugu yeedh mar walba labada qalbigeenna hadday ku weynaato macsiyadu way yaraan oo taacadda ayaa badan qofku hadduu mar walba ilaahay xasuusan yahay uu aakhirada xasuusan yahay bay culimmadu yidhaahdeen saddex sifa ilaahay siiya tacjiil atawba qofka mar walba ilaahay xasuusan inuu dhimanayana xasuusan baa la yidhi qofkaasi toobadda waa u degdegaa toobadda dib u dhigi maayo wuu degdegi sifada labaad ee ilaahay uu siiyey ma taqaanaa qofkaas qanaacatun fi lqalbi arsaaqadda iyo adduunyadana inta ilaahay uu qadaray ayuu qofkaasi raalli ku noqdaa تصدحاتنا بقى اللي يريه النشاط في العبادة طاعة إلهي بقفك سوج جبنانا يا إن الصلاة كود بيراتو وصونك كود بيرادو وقرآن أخرسك كود بيرادو وفردك مسكتك كو معانادو ودين تبرشده كود بيراتو وعمل فلك الدين تكو معاناتو وحكينا يا وهدي قلبي يا مرول بإلهي أتكو هيسد آخرته لا يكون هرتالو لبدا سي هدي قلبي يكو يراتنا لبا صدح عقوبة قف كود على صدح عقوبة عقوبة كوباد waxa weeyaan baa la yiri toobadu ayuu dib u dhigtaa hore uu toobad keenay maayo illa waa dhimanaysa ismale wuxuu isleeyahay waa noolaanaysa buu isleeyahay qanaaca ma yeelanayo qalbigiisu qanaaca ma yeelanayo waxa adduunka maal yaalo oo dhan sidoo ku heli lahaa ayuu habeen iyo maalin ka shaqayn man helayo halka ka qalbigiisa aakhiradu ku weyntahay cibaadada iyo taacadu u dhib yaraanaysana kana waxa ku dhacaysa alkasalu fil cibaada cibaadada ilaahay baa ku noqonaysa culays miqdaad saxaabiga la oran jiray radiyallahu anhu ayaa habeenkii markuu jiibsanayo waxa la yiri uu galgalan jiray saas uu galgalan jiray sida dhariga marka biyaha la saaro ee dabku ku ziyaaday biyuhu karsamaan sida biyuhu ay isku laba gadiyaan ayuu habeenkii u galgalan jiray sidaas markaa bay xaaskiisu ku oran jirtay maxaa la galgalanaysaa maad seexatida markaa buu ku oran jiray cabsida aan naarta aan ka qabo ayaa habeenkii hurdada iga qaaday buu oran jiray nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam waa kuwii saxaabadu ku yiri shibta nabi allah ciradii baa kugu badatay baryahan maxaa jira markaa buu nabigu yiri shayabatni hud wa akhawatuha suuratu hud iyo walaalaheed baa cirada iga soo saaray buu rasuulku yiri suuratu hud wa akhawatuha amma yatasaalun idha ash-shamsu kuwirat idha as-samaa'u infatarat idha as-samaa'u inshaqqat suuradaha qiyaamaha ka waramaya ayaa nabi maxamed cirada ka soo saaray suuratu hud markii la baarayna aayada nabi maxamed cirada ka soo saartay waxay culimadu ku sheegeen fastaqim kama umirta wa man taaba ma'aka فاستقم كما أمرت waxaad ku toosnaataa sidii ilaahay uu ku amray adiga hawaa عن istiqaamada markay culimadu ka hadleen waxay yiraahdeen waa laba buurood oo afiiqan dushooda u la dhigay oo la yiri qof bini aadana halka dulmar sidoo u soconaya sidoo socon degdeg u socon maayo cabsi buu ku maraya halka cabsi fastaqim kama umirta sidii lagu amray ku toosno xaq ilaahay ilaali xuquuqda bini aadamku ku leeyihiin ilaali maalinka qiyaamaha waxa timaada adoo bini aadan waxba kugu sheeganayn aakhira hadda timaada adoo wax lagu haysto waakii nabigu lahaa atadruna man almuflis qofka caydha miyaa taqaanaan saxaabadu waxay yiraahdeen caydh waxaan u naqaanaa annaku qofka diinaar iyo dirham iyo mataac waxba aanan haysan markaa buu nabigu yiri qofka caydh waa kee waa banka qiyaamuu la iman doonaa salaad iyo soon iyo zaka iyo xaj buu la iman doonaa laakiin dad fara badan baa halka hor joogsan doona dadkaas isagay wax ku sheeganayaan mid waxa uu leeyahay aniga ninkan waa idilay mid wuxuu leeyahay aniga waxaan ahayn buu igu sheegay mid waxa uu leeyahay xoolahaygii buu iga dhacay mid wuxuu iga leeyahay dhiig buu iga daadiyay markaas la oranayaa waxa li wuxuu ajar iyo khayr soo shaqaystay ka soo qaado ayaka siiyo janno ku galiya markaa baa la oranayaa waliba dad kala hadhay oo adoonka ma aragtaan ku sheeganaya xaq
markaasaa ilaahay odhan doonaa dunuubta iyaku ay soo shaqaysteen ka soo qaado isaga madaxa u saara dadna naarta ku tuura walciyaadu billaah muflis qofka caydhu waa kaas khayrkuu soo shaqaystayna dad kale ayaa jannada ku aadoo jannada ku galay dembi dad kale ay soo shaqaysteenna isaga ayaa intoo madaxa loo saaray naarta lagu tuuray marka istiqaamadu waa maxay walaalayaal waa inaad ku xisaabtantaa mar walba adduunyada waxaad ka baxdaa adoo aan waxba lagugu sheegin wayna adag tahay ma arrinkaasi laakiin waa inaan toobad keenaa mar walba toobadda inoo furan waana ilaahay u soo noqonnaa daarudunyaa joognaa maanta fursad baan haysanaa innaku dadkii adduunyada ka baxay fursad ay ku soo noqdaan ma haystaan way socdeen marka qalbigaaga mar walba ilaahay ha ku weynaado wallah haddii cadamatullaahi qalbiga ay degta bay culimmadu leeyihiin biqadri khawfaka min allah yahaabu alkhalqu minka wa biqadri xubuka lilaahi caza wajalla yuxibuka alkhalqu hadba intaad ilaahay adigu aad ka cabsootid ayaa makhluuqun adiga kaa haybisanayaan hadba intaad adigu ilaahay aad jeclaatid ayaa makhluuqna ku jeclaanayaan hadba intaad ilaahay ka cabsootid kun lii kamaa uriidu akuunu laka kamaa turiid xadiis alquds ilaahay baa le sidaan raba aniga ii yeel saad rabtana anaa kuu seelay sideen rabnaa maanta innaku dadkoo dhan maxay rabaan cidhiidhiga inay ka baxaan bay rabaan faqriga inay ka baxaan bay rabaan dulliga inay ka baxaan bay rabaan masaa'ibta inay ka dhex baxaan bay rabaan diiqu sadriga inay ka baxaan bay rabaan waxalliya waxa aad kaga bixi lahayd cidhiidhiga adduunyada iyo cidhiidhiga aakhira waa maxay xadhigga ilaahay qabso waa tii saxaabigii rabciy ibnu caamir uu u sheegay maaragtaane madaxayweyntii reer furus rustum allaahu ibtacaanaa ilaykum buu ku yidhi rustum qayd quwaat aljeysh buu ahaa rabciy ibnu caamir baa u yimid oo loo soo diro la yidhi orodoo la soo hadal hadday dagaal rabaanna diyaar baan u nahay hadday sulxi rabaanna diyaar baan u nahay rabciy ibnu caamir markuu u yimiday wuxuu yidhi annaku sidaad noo malaynaysaan ma nihin waxaana dad ilaahay adduunka u soo saaray baan nahay yaana soo saaray ilaahay linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad wa min diiqi addunya ilaa sicatiha wa min jawri aladyaani ilaa cadli alislaam buu ku yidhi ajiib waxaan adduunyada annagu iskamanu imane ummad la soo saaray baan nahay oo nebigeedii baa lala soo saaray calayhi salaatu wasalaam sida nebi maxamed caalamka loogu soo saaray inuu risaaladda uu gaadhsiiyo ayaa annagana haddaan nahay asxaabtiisii ilaahay baa na soo saaray buu ku yidhi linukhrija man shaa si aan uga saarna kii doona cibaadada ay caabudayaan addoommaha sidooda ah oon u saarna maaragtaane cibaadada ilaaha waaxidka waa arrinka maanta muslimiintu ay fahmi laayihiin wa min diiqi dunyaa ciriiriga adduunyada inaan ka saarna dadka la noo keenay buu yidhi annaka oon u saarna ilaa sicatiha nolosha adduunyada ballaceega iyo balladhkeega war gaaladu cidhiidhi bay ku nooshaa cidhiidhi bay ku jiraan muslimku markuu diinta dhab u qaatana sica ayuu ku jiraa sicatan fi risqi wa sicatan fi lmaali buu ku jiraa muminku sicuu ku jiraa sica muminku cidhiidhi ma galaayo nolosha waxa cidhiidhiga gelinaya waa maxay waa macsiyada nolosha waxa sicada gelinayana waa taacadda ilaahay saasuu ku yidhi saxaabigaas cidhiidhiga adduunyada inaan niga saarnaan u imanay annaku oo nii saara nolosha adduunyada balladhkeeda iyo waasicnimadeeda wa min jawri aladyaan adyaantan dulmiga iyo beenta iyo shirkiga iyo gaalnimada iyo khiyaanada ku dhisan inaan niga saarno ayaan adduunka u imanay buu yidhi annaku
oo nii saarno xagga cadaaladda islaamka jawr al-adyaan diinaha baadilka ku dhisan diinaha beenta ku dhisan diinaha dulmiga ku dhisan diinaha khiyaanada ku dhisan ayaan u imanay inaan niga dhex saarno oon u saarno dadka maaragtay diinta cadaaladda ku dhisan islaamka marka Rustum bay aduma amiirkii ciidanka tahay may anu mid jamaacada muslimiinta kamid ah baan ahay buu yiri markaas waan soo tashan doonaa iska soco ninbuu u yeedhay markaa Rustum wuxuu ku yidhi 3 maalmood waxaan rabaa muslimiinta inaad u tagtaan oo la cuntid oo la seexatid oo eegtid dadna marka aad soo noqotod iga warkeentid sidii buu yeelay waa cuyuun saxaabadu ninka la soo diray jaasuuska way garteen laakiin may dilina way iska dhaafeen 3 maalmood ninka jaasuuska ah markuu muslimiintii la joogay ayuu ku soo noqday baa la yidhi boqorkii markaasuu ma waraaka ragga aad u tagteen ku diray bal ka waran buu ka yidhi markaasuu yidhi fursaanun bin nahaari wa ruhbaanun bil layl buu ku yidhi maalintiina waa fardo oo diinta ilaahay bay u halgamayaan oo inay diinta u dhintaan bay heegan u yihiin habeenkiina waa ruhbaan oo waa suufiyiin habeenkiina waa cubaad maba seexdaana gacmaha ilaahay hoos haystaan oo ilaahay bay baryayaan halka inagu khamriga aan cabaynana iyagu khamriga ma cabaan halka inagu ballanta aan baajinaynana iyagu ballanta ma baajiyaan halka inagu aan isdulmaynana iyagu cadaalad bay dhexdooda leeyihiin halka inagu aan kala sarreynana iyagu kala sarreyn male kooga faqiirka kooga qaniga kooga madaxa kooga mijaha ma kala taqaanid meel kaliya wax ku wada cunaan buu ka yidhi ballan haday qaadaana ballanta kama baxaan beenna ma sheegaan khamrina ma cabaan sida nolosha adduunyada inagu aan u jecel lahayna inay aakhiro tagaan bayaku ay jecel yihiin buu yidhi عجيب لئن كنت صدقتني لا يملكن ما تحت قدمي هاتي هدي تهي كرون شيغايا صفاتك ادي شيغيسد اي مسلمين اد كو شيغيسد هدي مسلمين صفاتك اي ليهين كرسيغا يا خزائنت ذهبك هوستيدا تالا مالين اي قبسدان برغاس way qabsan doonaan buu ku yiri nolosha adduunyada raaxada adduunyada عزك الدنيا شرفت الدنيا هرمرك الدنيا خيرك الدنيا يا الله ولا ليال إيدتكم أنت أي رادين يا إلهي ملك لما قلن إلهي وحوق لي إن أمد إلهي أوصل نقطة بس إن إلهي الله صار نقطة وتوبوا إلى الله جميعا حكوا حقا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فلا أحبا دون إنسان ها صار نقطة هداد مسلمين هداد مؤمنين الليبان دون إنسان صار نقطة بيلاهين ليها جماعا ماها كلمة جمع كو صار نقطة أمدها صار نقطة توبت كانت تفلحون فلاح إلهي با فلاح شاقي والإسلام ماذا إلهي با كل شاقين لقول ليبان أيو حي على الصلاة حي على الفلاح بمؤذن كلية صلاة حقيقة أو كالي الليبان حقيقة أو كالية صلاة والليبان صلاة ولا تكذا لقول ليبان يا مهرد هذا وصلاة كوكو دافت لقوم الليبان أيو أمر كإلهي والله قاتل لقول ليبان قد أفلح هي الليبان دتك إيمان كلا الليبان يا صلاة دي بقول لي والليبان تأو كالي ليبان با إلهي شاقي إلهي با الليبان شاقي مركا الليبان تو دين تيكو جرتا دين تاسنا الحمد لله إنك إلهي دين تاو نسيه ونقول لي والله دادك ودنك كن نول بقولال كن أو جرب على الربا إلهي نكو شكرنا دل دين تودو مديسان تهي عقيدة تودو مديسان تهي مذهب كوغو مديسان يهي luqadoodu midaysan tahay ayaa ilaahay naga dhigay maanta innaka wadarkaasaan caalamka maanta waxa ka socda nicmada ilaahay na siiyay inaan ilaalshanaal naga doonaya oo hareeraha ka wada joogno oo caamadeena iyo culamadeena tujaarteena fuqaradeena odayadeena dhalinyaradeenna dawladeena shacabkeena waxaan ku faanaynaa waa diin waxa la rabaa inaan diinteena ilaalshanaal naga rabaa
diintan saan ku ilaalinaynaa markaas waa in qalbigeena ku weynaataa diintu kow marka labaadna nolosheena diintu waa ina ka muuqataa oo mujtamaceena waa ina diintu ka muuqataa dhallinyaradeenna waa ina diintu ka muuqataa wiilasheena diin waa ina ka muuqataa gabdhaheena waa ina diini ka muuqataa tijaaraddeena diini waa ina ka muuqataa xukuumaddeena diini waa ina ka muuqataa mujtamac diiniya loo baahan yahay ummaddu inay isku bedisho laana zamankan maanta aan gallay waa zamankii diinta qof diin haysta unbaa badbaadiyo ogow qof diin haysta unbaa la jecel yahay zamankan waa zamankii diinta weeyaan nabigeennaa sii sheegay sal allahu alayh wasalam almutamasiku bidiinihi kalqaabid cala aljamra waa zaman ayaa imanaya buu nebigu yidhi sunnadayda ninka idhahda waan qabsanayaa uu la mid yahay nin dhamac haysta ha sii dayna xajiso waayo fasaadkaa badanaya sharkaa badanaya haddana sunnaha noolaanaya waa ka nebigu sheegaya ka sunnaha qabsada zamankaas waxa uu la mid yahay nin dhamaxaya buu nebigu yidhi dhamac ma hayn karaysid laakiin xajiso lilcaamili fiihinna ajru 50 rajulan ninka diinta sunnada markaa qabsada 50 nin ajarkood buu nebigu yidhi ayuu qaadanayaa saxaabi baa sare kacoo yidhi man 50 annaka mise waa 50 iyaka ah maya waa 50 ininkaa buu rasuulku ku yidhi 50 ininka fii sunan tirmidi 50 asxaabtii nebi maxamed ajarkoodii buu qaadan maanta ninka zamanka diinta qabsada نتمسك دينتنا قبسنا إن شاء الله هذا دلنا يردنا علماءنا عمدنا جزاكم الله خير الله ينجى جزاء السيو سادو سوق بشان كلن كعاوة علماء أي نقول مرتقى علينا نكو أرضي بانها علماء منهن ساجد كان مركز العلمي ummad oo dhan baa ka faa'iideysata cilmiga halka culimadu ay ka bixiyaan runtii meel kasto ay joogaan dadka af Soomaaliga ku hadla masaa'isha diiniga sheekheena jazaahullahu khayr halka ka bixinayo caalamka oo dhan baa ka faa'iideysta maanta marka anagu inaan hortooda ku hadalno ma ahayn laakiin haddana waa talab waa nasiixa weeyaan anagu caamadan wacdinaa inta badan tujaartu waa laba qaybood qolo waxaa jirta jumladlayaal oo badaacada jumlad bay ku keenaan iyo qolo waxaa jirta tafaariiqlayaal Soomaa bagaashlayaasha hadday labada ma kala maarmayaan ma kala maarmaan anagu marka tafaariiqlayaal baanahay xadiiska culimada aan ka maqlo ayaan maalin batuulo gaadhsiinaa caamadana waxaan leenahay caamoy culimada garab han siino seen garab culimada u siinayna wixii culimadeena aan ka maqlo ummadda han gaadhsiino طفيل بن عمرو الدوسي انتي نبينا او كم مغلي ايو يري تولكي انا غادسينيو يدر بوكيدي تولكي اني امرؤ لمطاع في قومي نين وحانا ددكي سؤاد دغيستا نبي الله وشاعره ادر وادر النبي صلى الله عليه وسلم marka uu soo noqdo uu calaamad la igu gartay ilaahay weydii markaas uu nabigu ilaahay u bariyay wajigiisa intaas ay iftiimaysay baa la yiri markuu dhaxdaas sii marayo ayuu ducaystay wuxuu yiri yaa rabbi haddaan maalin ku hagaago meeshaas iyadoo way cadaanaysaa marka waxay ii maleynayaan diintoodii markaan ka baxay inay barsiga dhacday u maleynayaan ilaahu nuurka halkan iga qaado jeedalka faraskayga la dhacay iftiinka igu bedel buu yiri والله ugu badilay waa nin shalay islaamay ayaa ducadiisa la aqbalaya inakana ducadeena ka warama maanta ya nin shalay islaama karaamaadka durba ka daahiraysa iyo nusradii inaka diinta islaamka ku dhalanayna ma aaminsanin ducadeena la aqbalaya maanta uu tagay waxa ninkaas tolkii karaamo ula tagay karaamo leenabiga karaamo weydiistay karaamadiina waa la siiyay waxa la yiri in yar baa ka soo rumaysay intooda badan way diideen marka uu ku soo noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam marka uu nabiga u yimid uu ku yiri reedows ilaahay rasuulkiisa way caasiyeen habaar buu nabi allah ilaahay habaabiye marka uu nabigu qiblada u jeestay gacmuhu kor u taagay saxaabadu waxay u maleeyeen nabigu inuu habaartamayo waxay yiraahdeen reedows way halaagsameen maanta marka uu nabigu ilaahu reedows soo hadee qalbigoogana adiga hayo ilaahu diinta jeclaysi buu yiri مو هبار مسوي دعي دعاء هوريس طفيل بن عمرو الدوسي بن نبي قوي يا ري هذيك أنا وحى وكور طفيلو مرقد مدة خير قادو شيء يسد
oo dhibri buu ka yidhi oo dadka isjeclaysiiya ha farxin dadka nahjigii dacwadana isagii baa laga saxay waana u duceeyey nebigu labadaa buu la noqday laba sifo cajiiba dacwad ku salaysan dabeecad wanaagsan iyo duco labadiiba kula noqday qoomkiisa can bakrati abihim reer Daws oo Abaa Hurayrana uu dhex socdo ayuu nebiga ugu keenay iyagoo soo wada islaamay Madiinada al-Munawwara karaamadii kuma islaamin waxay ku islaameen akhlaaqdii iyo ducadii intii nebiga uu ka maqlayna ummadiisa u gaarsiiyey innagana maanta intayna raggeena halkaa fadhiya guryahan ku noqonayno waxa laga yaabaa hadday 7 qof aqalka ku soo yeeynaysa habeenkii in ama 2 ay ka tukato ama 3 ka tukato taariikhdu salaaqa loo dhex fadhiyana ka warrama marka dacwadda ma aha mas'uuliyad culimada kaliya saaran hamoodina ummadan ilaahay ba shaqada diinta ugu talagalay inay ka shaqayso إن شاء الله علمك علماء أن كان قادنو إن جملة كذا قادنو إنه تفاريغ لنا قضايا وديار ومدة قارسيو يا ما شاء الله الله ينبارك يا جزاكم الله خير سلام نوصل دويسنا الله نوصل دويو كل جينا جنة الفردوس الله ينقو كل ميو وحق أنكو هذا الله ما ركتنا وحي أنا صيمنا إلهي بأن وفجيي وحي أنقفنا وقف حقيقة كيمدي إلهي بأن دمدا فويدي سننا وصلى الله على سيدنا محمد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أمنك الله إنه زياديو إيمانك الله إنه أتكيو dad badan oo walaalaheena ducadoon xanuunsan caafimaad sariic Allah siiyo qof walba halka kurbaysan kurbada Allah ka qaado muslimiintana meel kasta adduunka joogan muwaafiqiin midnimana Allah siiyo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad